السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحاب قيمة بدن كسو دواد مقال كلا قيمة بدن فضلا هدي عاد كعصب تاهي جنرال كان سبسكرايب نوصار مقال كان لايك صار قيبتو هوسي كومنتس كان نول وداك وحي فكري فالا إيدي رجالين با مهد سند أرينك حد قدب كاي إسرائيل ايكو هاي صومد المسلمين تا ايكو نول دالك فلسطين تاريخ ديسا يهالكو كسو بلاضي ايان اغاحل دونا فيديوغان كهر بربركي dowladii islaamka ee Cusmaaniyiinta 1922 waxaa Falastiin ku noolaa dad haysta diimo kala duwan sida Islaamka, Kristaan iyo Yahuud. iyadoo taasi jirto waxaa xukumi jiray xukuumadda Islaamka ee Cusmaaniyiinta. inta aan fiidiyowga u guud galin nuxurkiisa dadka qaar ayaa si qaldan u fahansan farqiga u dhaxeeya Israa'iil iyo Yahuud. Israa'iil waa magacii Nabi Yacquub alayhi salaatu wassalaam waxaana lagu magac daray ummadiisa. balse Yahuudi waa diin ay sameysteen ummadii Israa'iil kadib markii ay ku caasiyeen nabiyadii loo soo diray. waxay taariikhdu xusaysaa kadib burburkii dowladii Islaamka ee Cusmaaniyiinta, Britain waxaa u suurtagalay inay la wareegto xukunka dowladda Falastiin. isla waqtiyada dowladda Germany waxaa la wareegay hogaamiyihii kaliya taliska ahaa ee Hitler, wuxuuna baaba u geystay dadka haysta diinta Yahuuda. dadka Yahuuda maysan ahayn xilligaas dad haysta awood ballaaran, waxayna dhibaato kala kulmi jireen dowladaha reer galbeedka. waxaa jiray wariye u ololeyn jiray dadka Yahuuda in ay helaan dal khaasa iyo xukuumad iyaga gacantooda ku maamulaan. dowladda Britain ayaa xilligaasi taageero ballaaran u muujiyay arrinkaas in Yahuuda ay hesho xukuumad qaasa iyo dowlad iyaga gacantooda ku maamulaan. waxaa la soo bandhigay xilligaas 4 wadan si dadka diinta Yahuudiga haysta ay ugu noqoto hooy iyo haasi ay kaga nastaan dhibaatooyinka xilligaas loo geysanayay. wadamada waxay kala ahaayeen Argentina, Uganda, Mozambique iyo dalka Falastiin. ugu dambeyn waxaa la qorsheeyay dhulka uu ku yaalo masjidka barakeysan ee Al-Aqsa, qibladii koowaad iyo xaramka saddexaad ee dadka Islaamka, meeshii laga dheelmiyay nabigeena Muhammad aan ku salino sallallahu alayhi wasallam. ayaa loo arkay xilligaas in dalka Falastiin qayb kamida Yahuuda la dejiyo. xilligaas Yahuuda waxay ku imaadeen dalka Falastiin iyagoo barakac ah, sida ka muuqata sawirkan. haddii aad fiiriso waxa uu tilmaamayaa qariirada dalka Falastiin heerarkii ay soo martay. sawirkan u geeseeyay haddii aad fiiriso kalarka buluuga waa Yahuuda, kalarka cagaarkana waa Falastiin. waxaad dareemi kartaa xilligaas inaysan jirin wadan la yiraahdo Israa'iil, balse Falastiin ayaa ahayd dowladda kaliya ee ka talin jirtay dhulkaas. marba marka ka dambeyso waxaad arkaysaa kalarkii buluuga oo soo badanaya, kalarkii cagaarkan oo yaraanaya. macnaheedu ay tahay Israa'iil ayaa ku soo badanaysa dhulka Falastiin. waa xadgudub cad oo loo jeedo qof walba uu dareemi karo. 1948 maxaa dhacay? 1948 waxaa la aasaasay dowlad Israa'iiliya, iyadoo dowladda Britain ay u qaybisay dalkii halka ahaa ee Falastiin 2 dowladood, Israa'iil iyo Falastiin. qaramada midoobay ayaa dejiyay naqshadii xilligaas, waxayna 55% siiyeen dhulkii Falastiin Israa'iil, 45 soo hartayna waxay siiyeen Falastiin. halka qaramada midoobay ay sheegtay caasimadda Falastiin ee Daarusalaam inay tahay meel taariikh dheer u leh muslimiinta, Yahuudda iyo Kristaanka, sidaa darteedna ay noqon doonto meel ka wada dhaxayn doonta labada dal ee ahaan doonto meel caalami ah. 1948 waxaa dagaal dhexmaray Israa'iil iyo wadamada Carabta qaar kamid ah. sidaa darteed Israa'iil waxay u aragtay fursad, waxayna qabsatay qaar kamid ah dhulka Falastiin. dagaalo soo laabtay mar kale 1967 Yahuudu waxay mar kale dagaal la gashay qaar kamid ah dalalka Islaamka ee Carabta, waxaana loo bixiyay dagaalkaas dagaalkii 6 beri. waxayna Israa'iil u suurta gashay mar kale in ay qabsato qaar kamid ah dhulka Falastiin.
1964 dowladda Falastiin ayaa aasaastay urur magacooda loo soo gaabiyay PLO si ay u xoojiso dowladnimadeeda, halka Ameerika ay u arkaysay xilligaas in Falastiin ay wado arrin argagixisnimo ah. 1979 waxaa dhacay wada hadal u dhexeeya dalka Egypt ama Masar iyo Israa'iil si loo joojiyo dhibaatada Israa'iil ay ku wado ummadda muslimiinta ee ku nool Falastiin. waxaan lagu guuleystay heshiiskaas. Israa'iilna waxay raali ka noqotay inay Falastiin ka joojiso dhibaatada ay ku wado. madaxda labada dal Israa'iil iyo Egypt maadaama ay gaareen heshiis, waxaa suurtagal u noqotay in ay ku guuleystaan biladda nabadda Nobel Peace Prize. 1987 waxaa la aasaasay ururka Xamaas. dhibaatooyin dheer iyo jiritaan dheer kadib waxay ururka Xamaas ku guuleysteen doorashada dalka Falastiin 2006. khilaafyo dheer kadib dalka Falastiin ayaa wajahay dagaalo sokeeye, halka cadowgooda Israa'iil ay u noqotay fursad. mar kale waxaa dib u soo laabtay Israa'iil dhibaatada ay ku hayso dalka Falastiin. wargeysyada caalamka ayaa iska indhitiray dhibaatada lagu hayo Falastiin in yar mooye, halka Ameerika iyo qaar ka mid ah wadamada reer galbeedka ay saaxiib dhow leeyihiin Yahuudda. wadamada Carabta qaarkood ayaa ka aamusay arrinkan, iyagoo dusha ka daawanaya dad muslimiin ay isku diin yihiin oo hortooda lagu gubaya, Masjid al-Aqsa oo hortooda lagu dhibaateynaya. Turki, Pakistan, Masar iyo qaar ka mid ah dowladaha Carabta ayaa cambaareeyay arrinkan. Falastiin, khaasatan Masjid al-Aqsa, waxay muhiim u tahay dhammaan muslimiinta ee ma ahan kaliya Falastiin. shacabka muslimiinta meel walba ay joogaan ayaa ku muujiyay dareenkooda banaanbaxyo iyo in ay ka xun yihiin in Falastiin la dhibaateeyo. balse Israa'iil ma aysan joojin dagaalka ay ku hayso Masjid al-Aqsa iyo marinka Gaza iyo guud ahaan dalka Falastiin. ururka Xamaas ayaa dhankooda muujinaya dagaal iska caabin ah ka uga soo horjeedaan Israa'iil. waxaa arrin la yaab ah in marka ay Falastiin dhigeeda Israa'iil ay ku sameyso iska caabin, lagu tilmaamayo in ay wado argagixisnimo, balse marka Israa'iil ay ku soo duusho dhulka Falastiin ay dhibaateyso laga aamusayo. bal daawada qiyaas haddii adigoo daawanay fiidiyogan lagu soo gargaraaco gurigaaga oo lagu yiraahdo gurigan iskaga bax oo inaga ayaa la wareegayna. haddii aad diidana aad la kulmi karto jirdil ama aad ku weynaysa naftaada. dareen noocay ayaa dareemi lahayd? waa dhibaatada hadeertan ka taagan dhulka Falastiin. fadlan aan u duceyno walaalaheena muslimiinta ah ee Falastiin. u sheergaree fiidiyogan dhammaan asxaabtaada iyo ehladaada si ay iyagana ugu duceeyaan walaalahooda muslimiinta ah. haddii aad soo daabatay muuqaalkan intan oo dhan, waxaan rajeynayaa in aad like saartay. waxaan kaloo ku xusuusinayaa haddii aad ku cusub tahay channelkan inaad subscribe saarto si aad noogu soo biirto. qaybta hoose commentiskana inoola wadaag wixii fikri faalaa iyo dhiirigelinba. mahadsanidin dhammaantiin. tan iyo kulanti dambe iyo muuqaalka xiga.